السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السورة مل بدأ في هالدنيا كجوكتان channel كداونا سوا عبد النور معي وعبد النور حسين سين وذوقنا هاي مقالة عن سبعين وأنت بدأ وتسوي تابسي مال دويت مقالة كوري فيسبوك هاللي فيسبوك وحمري كوي تبانكم يسدح بقول مالها ما أنت محمر يا سو جديد واللحي تبانكم أو فلاوسة halka waxa ka garanaysaa marka waxaan inaysan nasiib ahayn laakiin ay u baahan tahay tab iyo xeelad uu qof walba qofka kale ku dhaamo oo hadii aad fahantaan adigan xeeladan oo Facebook profile-kaaga iyo page-kaaga ku badan karo xeeladahan hadii aadan garanayn waxa ku adkaanaysa inuu hal qof ilaa qof xitaa ku soo raaco laakiin hadii aad si fudud u fahanto xitaa Facebook cusub maanta bilowday hadii aad ku apply gareyso tabaha iyo xeeladan ku tusi doono adiga xitaa waxa waaye aad baad u fahmaysaa oo mid kasta oo Facebook cusub aad sameyso aad buu kugu hormaraya marka waxay isweydiinaysaa tabta iyo xaaladan aniga aan sameeyay maxay tahay sida adigana u sameyso soo dhaw waxaan rabaa marka muuqaalka inaan kugu tuso maanta sida caadiga ah hadii aad meeshan ku cusub tahay fadlan muuqaalka like gareey asxaabtaadan u share gareey waan ogahay baahidan kaliya kuma hayso waxa haysa dhalinyaro fara badan oo u baahnaan lahaa inay shuruuda Facebook lacag sameynta gaaraan hadii ay joogaan wadamada lacagta laga sameyn karo oo Kenya ugu dhowdahay sadradeed waa wax loo wada baahan yahay in laga wada faa'iideysto marka kaliya ha isku koobin aad iyo aad uma santahay soo dhaw muuqaalkan like gareey channel-kan ku soo bir saaxiibayaal waxaan rabaa inaan koodso dhowr tabood iyo xeeladood oo hadii aad sameyso aan isleeyahay Facebook-gaaga si degdeg ah ayuu hormariyaa marka hore si caadiga ah waxa haboon inaad setting-ka iska soo saxdo intaanan waxyaabaha kale loo galin waa in Facebook setting-kaaga iska soo saxdo halkaas hadii aysan waxba ka qaldanin ayaan u gudbinaa marka tabaha iyo xeelada kale okay waa sidee marka hoos ma u soconayaa waxaan tagayaa meesha ku qoran tahay setting and privacy kadibna waxaan tagayaa setting kulli meeshan waa la wada garanayaa oo waa setting-ka Facebook caadiga hada iPhone isticmaali hada Android isticmaali wax bedel iyada ma laha hoos baa u soo soconaysaa marka hoos marka u soo wadid waxaad ka bilaabaysaa meesha ku qoran tahay how people find and contact you sidee dadka ku helaan kuwala soo xiriiraan halkaas ayaan click siinaa halka markaan click siisto waxyaabo fara badan oo adiga ka qaldan baa jiro oo hadii aadan halkan ka sixin aadan natiijo sax ah keenin marka qaab walba aniga ka dhigo adigana ka dhigo si macnaha ay kugu fududaato inay dad badan ku soo raacaan waxaan ka bilaabayaa marka who can send you a friend request ya friend request ku soo diri kara dadka badan meeshan dad bay ka tahay nan oo ah cidnaba aysan soo codsanin hadii Facebook-gaaga ay uu leeyahay cidnaba aysan soo codsanin waxa natiijo in ha gaarto oo adkaanaysa maxaa yeelay dadka adiga iska block garay sidoo kale dad baa meeshan waxay ka dhigaan everyone or of Facebook qof walba ama cid kasta oo Facebook joogta ama off baba ka ah taasna muhiim ah because cid kasta hadii ku soo codsato friend request bay ku soo diri kartaa laakiin follow kuma soo diri karto waxaad ka dhiganaysaa marka meeshan qaybta dhexda ah ee ku qoran tahay your friends of friends saaxiibaday iyo saaxiibada kale ayaga saaxiib la si ah halkan maxaa laga wadaa waxa laga wadaa Facebook adiga 5,000 markuu gaaro uu ka buuxsamaya markuu 5,000 gaaro uu ka buuxsamo qof adiga saaxiibkaaga ah oo ku igu sii jiray qof ay mutual friends yihiin kaliya ayaa ku soo codsanaya inta badan inta kale ee dadka kamid ah waxay sameynayaan inay follow ku soo dhahan marka friends of friends kali waxa way halkan saaxiibadeeda iyo saaxiibadood kaliya ayaa soo codsan kara taas oo ka dhigan dadka kale oo dhan oo Facebook ilaan kuwa kugu jir waaba saaxiibada kuwa kalena kuwa mutual friends ka tii laakiin wixii ka soo haro dhan waxay si automatic ugu qasbananayaan inay Facebook-ga follow ku soo dhahan oo friend request ku soo diri waayeen xitaa hadii ay maagan inay ku soo diraan waxay ku qasbananayaan in waxa way wali uu Facebook-gaaga ayaga follow siiyo halkaas waa rajaynaa inaan iska saxdo waa mid koobaad marka waxa kale oo ku xigta who can see your friend list meeshan ayada only me ka dhig to hawa ku murminba ya arki karo saaxiibada adiga saaxiibada kula ah ee listiga kugu jira hadii saaxiibada adiga kugu jira ay cid kasta aragto taasna shakhsiyad ahaantaada uma wanaagsan soo daraadeed meeshan waxa qasab ah adoon public ka dhigin friends ka dhigin friends accept ka dhigin specific friends ka dhigin kaliya inaad ka dhigto only me aniga kaliya ayaa arki doona okay hoos u soo soconaysaa marka people with your phone number meeshan waa dadka number-kaaga hayo dadka number-kaaga hayo halkan anu waxa igu qoran your profile will not be suggested to people based on your phone number ayaan iga dhigan laakiin adiga waxa sameysaa meeshan waxa ka dhigataa friends ama saaxiibadii taas waa muhiim inaad saf dhahdid kadibna because dadka number-kaaga haya dadka number-kaaga haya waxay ka saacidaysaa inay kula soo xiriiraan hadii kale waxaad ka dhigan kartaa people who have your phone number in their contacts they have uploaded to Facebook
and your friends of friends. Marka waa connection possible. Dadka numberkaaga hayo waxaa la siinayaa macnaha inay Facebookaaga ay kugu soo darsadaan. Taasna waa dhihi kartaa. Ama waxaad dhihi kartaa for your friends on Facebook who have your phone number. Saaxiibada Facebookaaga ah ee numberkaaga hay. Macnaha waxay ka dhigan tahay dadka Facebook number dadka iskugu jirtaan ma ahani dadka kale contactigaaga hay laakiin aan Facebook kugu jirin. Taasna waa muhiim. Okay. Meesha marka how you get message request. Sidee message ku heli kartaa? For people with your phone number deliver request to dadka numberkaaga haya ee adiga numberkaaga haya waxa waaye message bay ku soo dirayaan markii messengerka ay numberkaaga ku arkaan. Taasna waxa ka dhigtaa message request. Don't receive request dadahayd wali waxa iska sii xiraysaa in lagu la soo xiriiro. Hoos baa u soconaysaa marka wuxuu ku leeyahay deliver request from people in your Facebook to groups. Dadka macnaha codsiga ku soo diraya mararka qaar qaabkay kugu la soo xiriiriyaan. Group message request will not be delivered to chat list. dadka macnaha waxa jira marka qaar inaad aragteen ma aqaani Facebook marka gashid meel ay ku qoran tahay message request meel ay ku qoran tahay meesha marka sii gashid umaad arkaysaa maadaama Facebook ka buuxa dadka ku soo codsaday meesha sadarada marka waxaad ka dhigataa chat ka dhigo. Okay, for other on Messenger Facebook deliver request dadka kale yani ayagana kuugu jira Messenger iyo qaabka ku soo xiriir karan ayagana waa message request. inta waa iska saxda umaleynaa intaas waa how people find and contact you. waxaan joognaa xeeladii koowaad ayaan wali joognaa waa ka soo soconaya marka waxaan imaadayaa marka flowers and public content dadka ku soo flow garay iyo public content-iga qaabka ay kugu soo gaaraan. Who can follow me ya isoo raaci kara meeshan public waa automatically public bay ku tahay saadaradeed haday wax kale ka saarin Facebook inuu kala duwan yahay laga yaabo marka qaar aad update cusub isticmaalin public ka dhigo. Who can see your flowers on your timeline only me waa taasna. Who can see people pages and list you followed dadka iyo pageka aad follow garaysay ya arki kara only me na ka dhigataas because waxyaabaha aad follow garanayso maadaama ay privacy adiga muhiim ku tahay. Who can comment on your public post yada ya comment gareyn kara public ka dhiga ayagana. Public notifications ayagana ya sameyn kara public ka dhiga. Public profile info ayagana public ka dhiga. waxyaabahana waa waxyaabaha markaad u baahan tahay inaad iska saxdid. inta markaa sameyso waa soo laabanaysaa Facebookaaga waxa laga yaabaa profile caadi inuu yahay laakiin waxaad qasab ah inaad ka dhigto professional dashboard. Professional dashboard sidoo u dhigaya halkaas aad ku dhufanaysaa kadibna waxa imaanaysaa meeshan ku qoran tahay turn off professional. ani hadda maadaama uu yahay haddaan off ku dhufto iga damaya macnaha waa iska xiriya laakiin ku xisaabtan hadduu professional ku ahayn Facebookaaga profile-kaaga sida lagu soo raaco waa adag tahay maxay yeelay dadka waxay arkayaan message request ahaan bay ku arkayaan laakiin page ahaan kuma arkayaan. markay page ku arkan follow ba soo baxayso oo tusaale hadda dankayga view as dhaho on dhaha qaabkay dadka arkayaan bal ay tusodaan dhaho meesha waxa ku qoranaysaa ujeedid waa follow yani dadku ay soo follow gareeyaan ma ogi message iyo friend request u dir waxaas ma laha. optionka kaliya haystaan waxa waaye inay soo follow gareeyaan. aniga marka optional waxaan u haystaa dadka aan aniga rabo inaan Facebook ka aqbalo inaan dad tiro aan qof u tiro ama laba qof u saaro kadibna aan ayaga ka aqbalo because 16,000 iyo maraya 5,000 baan loogu talagalay marka qof cusub inaad aqbashid waa inaad dad u tirtaa. Okay, intaas marka waa tabii xaaladaha muhiimka ku ah. waxa kale oo qasab ku ah saaxiib oo u baahan tahay inaad isticmaasho Reels ama Facebook Reels. muuqaalkan miyaadan arkin sida geela loo abuuray waa ayad quraana saa u jeedid muuqaalkan waxa daawatay 338,045 oo qof comment garay la gareysay 907 qof comment gareysay 3.2k shares ayuu helayaa kaliis maaha. haddaan videos ku dhufto halkan waxa arkaysaa muuqaal kale oo ay daawatay 500 waa kan muuqaalkan waxa daawatay 500,000 oo qof waa ka oo u jeeda waa 500,000 oo qof 500,000 iyo 400 marka la isku daro almost that million wax yar ay uga dhiman tahay 900,000 ah oo waliba cadad raacsan tahay ayuu muuqaalkii ayaa hadda ku jira Facebook halkaas waxa ka arkaysaa marka Reelsiga naftirkiisa dadka daawanaya inay ku soo follow gareeyaan. haddaan hadda dhinacan ku dhufto marka ugu dambeysay dadka soo follow gareynay waa dad yani Reelsiga ka imaad dadka ugu badan ee soo follow gareeyay Reelsiga ka imaadeen taas oo ku tusaysa marka in waxa waaye Facebook Reelsiga uu muhiim yahay waliba sida adiga hadda u maleynayso inuu ka muhiimsan yahay. marka waa ku qasban tahay inaad Reels isticmaasho. inta soo xeeladan ku soo sheegay waxa jira marka dhowr xeelad oo raacsan
taas oo ah inaad Facebook aad haysato aad samaysato Facebook cusub haddii profile-ka maaha mid kale aad samaystid kadibna groupyo badan aad ku biirtid kadibna content-iga ay waxyaabaha aad soo dhigayso inaad Facebook-ga kale ku share garayso maxaa yeelay isla Facebook-gaaga haddaad ka share garayso algorithm-ku ku fahmaya kadibna waa lagu soo qabanaya waan rajeynaa marka muuqaalkan inaa wax badan aad iyo aad ugu fahantay ilaa dhamaadka haddaan nala soo gaartay fadlan channelka like garay ama channelka subscribe leh muuqaalkana like garay aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.